عليكم صاحبيال kusoo dhawaada koorsadina AutoCAD drafting course videogana maanta waxaan ku arkaynaa lecture 7 oo aan ku baran doono moving and copying objects sidee shay meel looga qaadaa meel kale loo geeyaa amaba sidee copy loogu sameeyaa oo isaga mid lamid ah loo sameeyaa halkan waxaan noo daaran softwarekeeni AutoCAD okay qaybtan waan ka soo baxnay drawga ah qaybtan ayaa hadda ku guda jirnaa oo ah modify shayga in wax laga bedelo in aad meel wax ka tirtirto meel wax ka jarto meel shay ka fidido meel ka qaato meel kala geyso waxyaalahaas oo dhan lagu bartaa sidee loo wareejiyaa waxyaalahaas oo dhan ayaa lagu baranaa marka option ugu horeeya maxaa marka waa move kan ku xigana maxaa waa copy halkan waa ka soo dooran kartaa sidoo kale waxaa isticmaali kartaa command oo move wuxuu u yaqaanaa m okay iska tir marka c na wuxuu u yaqaanaa ama c kaliya daageli circle u yaqaanaa wuxuu u yaqaanaa copy okay so marka waa isku mid waaye so marka hadda waxaa sameynaynaa line iska sameysanaynaa toos ah okay sidoo kale waxaa sameysanaynaa hal circle na waa sameysanaynaa aw circle-ka kana okay marka waxaan rabnaa circle-kan waxaan rabnaa inaan inta qaadno dhaxda inta qabano halkan aan ku xiriir sida taayirkii oo kale so marka waxaa sameynaysaa inta ka soo dooro move wuxuu ku leeyahay marka select object shayga qaadeeda ii sheeg waa kan hal leeyahay kadib enter dheh kadib wuxuu ku leeyahay base point halka aad ka qabanaysid ii sheeg shayga waa qaadirta xagaaga qaban halkaan la dhaxda kaliya marka ku sii waa wada taaba already meesha dhigi lahayd ayuu ka sugaa halkaan dhigeena okay so marka control z ka laabo waxa sameeynaa marka m ku soo qaad markaan command ahaan ku soo qaad sidii oo kale waxa sameey kartaa marka hal mid waa sameey kartaa inta shayga doorata marka hore oo m taabato kadib waa qaban kartaa kadib meesha loo baahnaa dhige saas waa la sameeyaa okay waa isku meeshii leeyahay hadda shayga marka hore highlight gareyso ama marka toolka doorata kadib uu ku weydiin doona shayga ii sheeg uu ku dhigi doona okay soo la markaan waxaan rabaa marka copy na isticmaalo waxaan leeyahay marka meeshaan aan taabana move-ka kan ka hooseeyo marka intaas taabto wuxuu ku leeyahay base point-ga ii sheeg xagaa ka copy-nay xagaa ka qabanay shayga halkaan ka qabana okay xagaan ii dhig okay xagaana sidoo kale waa dhiga okay balse markaan mar kale waxaan ku soo qaadaa comment ahaan co aan leeyahay intaan leeyahay objectiga aad copy-naysid kan iyo kaas isku mid waaye kanaan baleeyahay tusaale ahaan intaan leeyahay base point-ga ii sheeg ka soo qabo halkaan waaye okay ama mar kale naga tir waxaa sameysaa waxaa sameynaynaa markaan kanaan ka soo dooranaynaa markaan okay waxaan leenahay xaggaan dhig okay mar kale waxaa dhahdaa mid point-ga dhexda dhig okay so marka qaababkaas ayaa loo sameeyaa copy inaad shay soo koobiyeyso ama mid lamid ah sameeyo oo meel kale aad dhigto ama inaad shay move dhahdo meel ka qaado meel kale aad geyso cashirkeenana halkaas ayaan ku soo koobaynaa waxaa inoo balana lecture-ka kan xiga oo ah lecture 8 insha Allah